sawirro qof aan jecelahay la galay baan galay sawir aan keligay yahay madaxa ii qaban baan galay mana ahayn sawirraan ugu talagalay bulshada inay aragtay sawirro anaga gaar bay ahay marka dadka ay tusma waa qof gabdhaha waalahay ah ee hadda farxadda ku jiifa ee hadda aan dhibaatada ku dhicin baan kula dardaarmayaa waanadeeda haddaa qaadato waxaad ka baaqsan doontaa ama aad ka badbaadi doontaa waxa ku dhacay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتا يولالاها كحرا برتيدا يوتيوبكا ميل والبو الدنيا كجوكتان هداي مال لدين تانا مال وناكسن هداي هبين لدين تانا هبين وناكسن انتا كدب شلي إلا ما انتا ولي وحا براها بلشدة هيستا لهذا الحايا فناندا صفية تصمو oo laga keenay muuqaal ay dhunkanayso ninkeeda sida aad wada ogsoontiinba ama aan idinla wadaagay xalay muuqaalkii aan soo geliyay aan kula wadaagay oo ahayd in ay qalad tahay in fanaanad Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ama qof dumar ah la ceebeysto inay tahay wuxuushnimo qofka falkaas ka dambeeyay oo yahay qof aan qiimaha dumarka waxba ka aqoon weli doodii waa ay taagan tahay waxaa dhacday in fanaanada qudheeda ay wareysi siido wariye Shiina Culey wareysigaas ay waxay ku sheegtay in ay bilaadan tahay sidoo kalena ay isawiri karto waxayna la gashay sawirka ninkeeda oo ay jeceshahay inta aanan wareysigaas idin la wadaagin dabcan qaarkiin waxa laga yaabaa inaad aragteen laakiin waxay dadku inta badan hadal hayaan in fanaanada Safiya Tusmo la jabsaday Snapchat-keeda Facebook-geeda waliba Apple ID-ga telefonkeeda sidoo kale waxay sheegtay fanaanadu inay aad uga xun tahay waxa ku dhacay waxa la weydiiyay fanaanada in ninkeeda ama qofka sawirka kala muuqda uu yahay shakhsiga faafiyay sawiradaas waa ay diiday oo waxay tiri asagu wax dambiya ma lahan mana ahan qofka waxa sameeyay mana ahan qof ii quura in uu aniga sidaas ii fadeexaysto sidoo kale fanaanadu waxay diiday in xarig loo geystay 2 sano ka hor booliiska Somaliland ay u geysteen oo ay telefoon ka qaateen in sawirada ay markaas kala baxeen inta aan idin la wadaagin mid baan rabaa inaan idin xasuusiyo mar kale dumarow ma ahan fanaanadii koowaad ee fiidiyoo sir u ah laga keeno waa ogeedeen hadda ka hor in fanaanadeena sharafta badan Nastaaxa Indho muuqaal ay leedahay si qaldan barnaamijka ugu soo baxay sidoo kale maalin dhaweed waxaa jirtay gabar ayada fanaanada oo fiidiyoo ilmeynayso ama jaceylkeeda oo ilmeynayso in baraha bulshada lagu soo faafiyay haddana qaldaneen fanaanadaas waxa la yiraahdaa umaleena Xaliimo Gobaad Xaliimo Gobaad ma aha ama Hibaaq Gobaad haddana qaldaneen haddana waxa waa Safiya Tusmo dumarow rag waxaa jira ka macaasha ku farxa jabkiina rag waxaa jira u nool mar walbana ka shaqeeya sidii adinka idin dhibaateey lahaayeen qaar waxaa jira aad moodaan inay yihiin daacad adinka idin jecel mar walbana ka shaqeeya hagardaamadiina mar kale waxaan idin kugu celinaa haddii aad dumar tahay marnaba ha samaynin waxyaaba sharaftaada dhaawici kara tusaale ahaan haddii wiil video ka soo waco xitaa haddii uu ninkaaga yahay oo ku dhaho camera iga tus jirkaaga ama cawradaada iga tus waxa dhahdaa waa idab daran tahay xitaa haddii ninkaaga yahay iska badaa meel adigu ku qabin haddii aad sameeydo oo aad ka ogolaato mid aan ninkaaga ahayn maalintaas aad ogolaatay wax sharaf ma lihi asagana kuma rabo oo cawradaada wuxuu ka arkay telefoon kuma baahna kaliya ku isticmaalaya haddii aad ninkaaga xataa u sameeyso sida ay mar horeba noo sheegtay Farxi Kabayre waxay tiri ninkaaga xataa waa oo waala karaa
hadduu waasho ka war ninkaaga soo qasaaro maaha haddii taleefanka laga dhaca ka war soo qasaaro maaha adiga bataatanba iska jooji in jirkaaga ama cawradaada fiiri aad ku aaminto camero ama maaragtay technology ama wax gaal soo saaray jooji cawrada waaba cawro maxaa aniga finaandan u wataa maxaan surwaalkan u wataa waa anaa cawradeeda dadka asturaasho maaha adigana sidoo kale adoo gabara waa iga cawro badan tahay ha samaynin in jirkaaga ama cawradaada aad taleefon ku kaydiso ama snapchat ha ahaado ama facebook ha ahaado taas jooji wax walbo dhaco ha yeelin ka soo qaad in haddii aad samaydo ama kamerada ama snapchatka isaga duubta jirkaaga aad nin u dirto waxaad ka soo qaadaa adoo qaawan oo jidka marayo kala saasay la mid tahay maxaa yeelay baraha bulshada ayaantan waxaa ku soo batay in lagu fadeexaysto gabdhaheena Soomaaliyeed gabar wayna dhashay wayna la dhalatay waa dhali doonaa waa qabnaa nacas baa gabar ka oysiiya intaas waa iga dardaaran oo waxaan kula dardaarmayaa gabdhaha walaalahay ah ee hadda farxadda ku jiifa ee hadda aan dhibaatada ku dhicin baan kula dardaarmayaa waanadeeda haddaa qaadato waxaad ka baaqsan doontaa ama aad ka badbaadi doontaa waxa ku dhacay gabdhaha walaalaha ah ee la soo ceebaystay ee sharaftooda iyo cirdigooda loo ciyaaray anyway Safiya Tusmo waa hooyo Soomaaliyeed waa majaajiliiste Soomaaliyeed waa jilaas Soomaaliyeed waa gabar qiimo badan waa maamo qiimo badan ninkeeda ayuu ahaa way cadayday wax dhiba ma lahan ayadii ninkeedu isdhunkanayo dadku waa isdhunkadaan maalin walba jidka isku dhunkadaan Soomaalida qurbaha waa aragnaa wax weyn maaha laakiin waxay la ciishoonaysaa ama ay ka xun tahay ayaa ah in aysan ku faraxsaneen wax private ayadii ninkeeda u ah in bulshada ogaato waana sax qof walba shir oo leeyahay aniga idin hadlay ayuu Karla asiraan leeyahay adiga hadda i daawanay siraan leeyahay qof walba sir leh ha aniga fiiri ani ma rabo aniga naagteyda oo isdhunkanayno in la arko laakiin si saxda ah laba qof oo isqabto ilaaha isku banay way isumi karaan wax walba sameey karaan balkii xalaal isku yihiin Soomaa ha laakiin qof walba sirtiisa in dadku ogaadaan ama la hadal hayo ama la falaaqeeyo ma rabo haddii aadan rabin in sirtaada ama waxa kuu qarsoon in la ogaado haddii aadan rabin ha aaminin Snapchat ha aaminin Instagram haba aamininba application xun oo uu soo sameeyay nin adiga oo kala ah ha isku aaminin sirtaada laabta ku hayso ma waysan walaal ha lafaha una okay waatan maray ka hadlaysi horta waan mahadcelinayaa dadka Soomaalida arrintii xun waan mahadcelinayaa dad kale tusmo maxay ku sawirtay tusmo horta malaa'id ma aha human baan nahay bashar baan nahay de sawir waan gali karaa dad baa iyagoo maydhanaysa sawira dad baa iyagoo qaawan oo muriga ganaysa sawira aniga waxa weeyaan de sawiro qofaan jecelahay la galay baan galay sawir aan keligay hayo madaxa ii qaawan baan galay mana ahayn sawiraan ugu talagalay bulshada inay aragto sawiranagan gaaro bay ahaayeen waa sax sawiro private ayay ahaayeen ayadu ma aysan rabin in sawiradaas aan annaga aragno ama ay baraha bulshada ku faafaan waa sax ma aysan rabin qofka ay sawirada la gashay waa ninkeeda laakiin khaladka meesha uu ka jira ayaa waxay tahay ayada iyo ninkeedaba waxay aamineen application xun oo nin ficooda uu soo saaray ama nin gaala soo saaray qaladka kaliya ee aan u hayo Safiya Tusmo ayaa taas ah sida kale waa gabar sharaf leh waa fanaanad Soomaaliyeed waa jilaas Soomaaliyeed waa qof dhowrsan waa qof bulshada ay jeceshahay laakiin halka qalad ee aan u hayo ayadii ninkeeda wixii inay aamineen waxaan leeyahay Snapchat iyo aaladahan bakhtiga ah ee mar walba lagu fadeexaysanaya gabdhaheena Soomaaliyeed waa tahay mar ay ka hadlaysay in ninkeeda ama qofka sawirka kula jira ay dhunkanayso oo yahay qofka ka dambeeyay in sawiradan ku faafaan baraha bulshada ay waxay jiri maya sidaan anu ka haybu ka yahay daawac aniga soo gaadhay kiisa soo gaadhay siiba aniga hadda hal nabar bay soo gaadho de waxaan igu dhacay isagu laakiin
labaa kusoo gaadhay isagii oo la aflagaadeynayo oo dembigii loo haysto uuna gelin iyo isagii oo kay aniga igu dhacay isagana ku dhacay marka walaalo shaqo kuma laha beri buu ka yahay taas anigaa caddaynaya anigaa huba imana quudho inuu dhibaato caynkaas i gaarsiiyo kamana suurtowdo oo shaksi noocaas u samaysan ma aha shaqana kuma laha walaal macaan waa tahay ilaa hadda si toosa looma hayo qofka ceebaystay fanaanadda ama sirteeda bannaanka keenay waa ayna diiday in ninka sawirka kula jira oo ah ninkeeda oo ay dhunkanaysa uu yahay qofka ka dambeeyey kama dambey karo oo waa ninkeeda ayada iyo asaguba qalad male waa dad isqabo oo xalaal isku ah halkaas markay ay joogto waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka Soomaaliyeed warnooyo mismaqleynaa niman raga alla idinka dhigay joojiya gabdhaha aad maalin walba ka daba wareeganaysaan joojiya gabdhaha aad ceebaysanaysaan joojiya gabdhaha aad ka oysiinaysaan nin raga oo boqollow ah gabar kama oysiiyo xitaa hadduu yahay tuug dilay kumanaan qofood ama mooryaan gangistra ninka ragga ah gabar kama daba wareego nacas baa gabar ka daba wareega wallah niman yahow raganimada ha nooga dheelina naasadurta sida maaragtay kuwa maaragtay lagaroonayaasha ah naasadurta oo raganimada nooga baxa because rag ma wada ahaa karno rag aniga iyo adinku rag ma wada ahaa karno suuba idin dhashay edabiyaasha oo gabdhaha dhibaatada ka daaya ma aha gabadhi koowaad oo aad dhibaataysaan waxaan ka dambeeyey nin raga inuusan waxaan ka dambeeyey nin raga horta ma aha qofka sidaan gabadha u galayne waa nin gabar walba oyso waxa ka oysiyo waa nin hooyada 9 bilood caloosha kugu soo waday waa tuman walaasha kula dhalatay nin inuu caayimo rabtid walaasha in la fadeexaysta ma rabtid waa dagaalamay dada dilay waxba feeray xabada riday nafa jaray walaasha tilaan midaan aad ka oysiinaysan nin bay la dhalatay hooyada wasi sarta adigu joojiya feeri gabar walba nin la dhalatay xitaa ayada hadaad ixtiraameen ninka la dhashay ixtiraam adoo kale iska soo qaad markii adoo kale waa moogtaa ninka la dhashay hooyo leedahay ka daayay gabdhaha ciyaarta ninka ma fiiri qof dhar oo hooyo ah maamooyinka hadana u soo dhigateen joojiya dadka aad dignity-ga uga ciyaaraysaan iyo sharafta bilaa cali waa ta halkaas iga egta aada uga xumahay markaan ku celnaa waxa ku dhaca walaashii Safiya Tusmo anyway waa iibkaar loo soo idin meel walba dunida ka joogtaan guuleysta saaxiib haddii ay tahay markii kugu horeeday aad soo boqoto barteeda YouTube-ka subscribe saar gambareelka furo muuqaalkana like dhac ku sii like taas waxay muuqaal ka caawinaysaa fiidiyowga inuu dad badan gaaro haddii aad kamid tahay qolyaha waa hore subscribe ka saartay oo hadda daawanaysa muuqaalkayga saaxiib adna waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkayga guuleysta